الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم يسر العسير فإن تيسر العسير عليك يسير. الحديث الأول مروي عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. waa darsigii diiniga ahaa ayna ku baranaynay cilmiga xadiiska nabigeena calayhi salaam gaar ahaan kitaabkaynii ahaa al-arbaciin an-nawawi. darsigan waa darsigii afaraad duruusta kitaabkeena ka mid. waxaan ka soo hadalnay muqadimada kitaabka ayaan ka soo hadalnay iyadoo tilmaamaysay meelayow kala duwan ayaan ka soo baxnay hadalkeeda. wuxuu rabaa mu'alifka raximahu llahu tacaala maqsuudka kitaabka inuu halkan uu ka guda gaalo ayuu rabaa. wuxuu yihi xadiiska koowaad marwiyun weeyaan mid laga wariyey can amiiri lmu'miniin mu'miniinta amiirkooda xaggiisa laga wariyey. abi xafsin geesinimada aabaheeda xaggiyaa laga wariyey. cumar ayaa laga wariyey cumarko ibn اlkhadaabi khadaab inankiisa ah radi allahu tacaala canhu ilaaha ka raali noqde. wuxuu yidhi xadiiska koowaad waxaa laga wariyey amiiru lmu'miniin cumar ibn alkhadaab ayaa xadiiska laga wariyey. abi xafsin lagu magacaabi jiray geesinimada aabaheedii waa liwaxnimada ilen waa xafsiga waa ismu asadin waa abi xafsata ma abi xafsat haddii la yidhaahda xafsa aabaheeday noqonaysaa haddii taa la raacsiiyo taadii marka waa ka jaray abi xafsin baa la leeyahay waa geesinimada xadhaafka ah aabaheedii weeya. saasaana lagu macnaynaya abi xafsin haddii la yidhaahdo waxaad arkaysaa bacdi culamada ka mid ah inay ayaga marka ku macneeyaan xafsa aabaheeda. abi xafsin xafsa aabaheeda saas xafsata haddii la yidhaahda xafsa aabaheeda uu yahay
abi xafsin markii taada laga jaro waa geesinimada aabaheedu weeyaan. cumar waxa weeyaan waa qofkii ugu horeeyey amiirulmu'miniin lagu magacaabay weeyaan sayidina cumar cala alcumuum. waa magaca amiirulmu'miniin bacdi oo saxaabada nebiga ka mid ah ayaa isaga ku magacaabeen ama asagaaba nafsadiisa ku magacaabay amiirulmu'miniin. maalin maalmaha ka mid ah asigoo khudbaynaayo sayidina cumar oo khudbadiisa qaarkeeda wuxuu ku yidhi ayuha nnaas antum lmu'minuun wa ana amiirukum. saasuu yidhi, dad yahow idinka waxaad tihiin waa dad mu'miniina, anigane amiirkiina ayaan ahay buri sayidina cumar. marka asaga naftirkiisa isku magacaabayna waa la yidhi amiirulmu'miniin. magacii baa marka lagu magacaabay oo amiirulmu'miniin ah. asaga hortiisa khilaafada sayidina abubakar ayaa ugu horeeyey. abubakar marka amiirulmu'miniin lama dhihi jirin asaga radi allahu canhu ilaaha ka raali noqday. waxaa la dhihi jiray yaa khaliifata rasuulillah ayaa la dhihi jiray asaga. yaa khaliifata rasuulillah ayaa la dhihi jiray. ilaahay rasuulkiisa khaliifkiisa saasaa la dhihi jiray abubakar u ah. asaga amiirulmu'miniin lama dhihi jirin u ah. marka sayidina cumar markuu yimid asagana waxaa la dhihi jiray yaa khaliifati rasuulillahi yaa la dhihi jiray sala allahu calayhi wasalam. yaa khaliifati rasuulillah cibaaradii yaa dheeraatay, markaasaa amiirulmu'miniin lagu magacaabo. marka waa geesinimada aabbaheedana nabiga ugu kunyeeyey calayhi salaatu wasalaam. kunyadiisii waa nabiga markuu arkay cumar awooddiisa darnaanteeda markuu arkay ayaa abi xafsa u yidhi nabiga calayhi salaam. xafsiga luqa ahaan al asad waa libaax ayaa la yidhaahdaa oo shaacisa weliba. sayidina cumar waxaa loogu naanaysaa faaruuq ayaa loogu naanaysaa. cumar alfaaruuq baa la yidhaahdaa. maxaa dhacay? ilaahay subxaanahu wa tacaala cumar xaqa iyo baatilka ayuu ugu kala farqeeyey. ilaahay subxaanahu wa tacaala xaq iyo baatilka ayuuba cumar uu ku farqeeyey sayidina cumar ilaaha ka raali noqda. waa ninkii ugu horeeyey cumar islaamka la jahray. islaamnimada qofkii ugu horeeyey ku jahray buu ahaa sayidina cumar. ilaahay subxaanahu wa tacaalana uu ayiday, nabiga ducadiisiiyuuna ku ayiday. nabiga wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam, ilaahayuu islaamka laba rajul midka agtaada loo jecel badan yahay ilaahuu ku ciday buri nabiga calayhi salaatu wasalaam. waa cumar ibn alkhadaab iyo camar ibn hishaam oo abujahl ah. marka ducadii nabigu waxay u dhalatay sayidina cumar ay u dhalatayoo ilaahay islaamnimadu waa ku hanuuniyey. marka sababka islaamnimadiisa ducadii nabiga weeyaan calayhi salaatu wasalaam. marka cumar waaba beristay uu soo islaamay. islaamnimadii ayaa marka sayidina cumar uu markaasina qaatay. marka nin cajiib ayuu ahaa. marka wuxuu tixayaa sababta uu ku soo islaamay iyo wixii markaasi la xiriiray
arrimaha buuna soo hadal qaaday marka geesinimadiisa iyo waxtarkiisa intuu muddada hayay, cadaaladiisa, dhexdhexaadnimadiisa, aqoontiisa, sifadiisa, shamaaishiisa. haddii waa laga hadlaa la yidhaahdo waa mawduuc si gaar u socdo weeyaan. sidaa awey marka khulafada nabiga calayhi salaatu wasalaam kutubo ayaaba laga qoray oo ayaga marka looga taariikhay, kutubo oo ayaga looga taariikhay ayaaba laga qoray oo alkhulafaa urashiduun waa si gaar ahaan ayaa marka ayaga looga taariikheeyaa oo ayaga macnahooda saxaabada nabiga taariikhdooda way ka taariikh weynta. ayaga saxaabada nabiga intooda soo hartay way ka taariikh weyn yihiin. si galaama marka looga hadlaayo arrimahoodii waa dayib. marka cumar wuxuu yidhi samictu rasuula allahi ya maqlay buu yidhi sala allahu calayhi wasalam, ee rasuulka codkiisa ayaan maqlay xaala kownihi yaquul, xaal uu dhahaya nabiga innama alacmaalu binniyaat, innama alacmaalu acmaasha tasixu, innamaa sixatu lacmaali waa acmaasha ansixiddeeda binniyaati niyayaal qabidii ayay ahaatay buri nabiga calayhi salaatu wasalaam. waxaan maqlay buu yidhi rasuulullaahi muxamed salawaatullaahi wa adka tasliimaatihi calayhi oo dhahayo acmaasha waxay ku ansaxdaa niyo ay ku ansaxdaa buri nabiga calayhi salaatu wasalaam. macnaha camal ma ansaxayo niyo sokodeeda, camal markaasina ma ansaxayo. waxaa la yidhi dana ma ahaanino in la qadaro mudaafkan oo sixada dana ma ahaanin. macnaha muraadka wuxuu yahay camalka xaqiiqadiisa ayaa markaasina niyo loogu maarmeynin waa niyo loogu maarmeynin waa marka inamaada oo shiiqa uu soo qaatay waxa weeyaan adaatu xasrin weeyaan, adaatu xasri weeyaan. macnaha fiiri waxaa la yidhi macnaha hadalka kasro weeyaanoo kulliya ma ahan baa la yidhi. macnaha waxaa jiro oo markii la dhahaayo innama alacmaalu binniyaati kasro unbaa loola jeedaa mooyaanu ma aha kulliya ma aha. macnaha waxaa jiro camal iska ansaxayo niyo la-aanteed iska ansaxaya ayaa markaas iska jira. salaada markii la aadaamayo oo kale, qur-aan in la aqriyo markii la doonayo oo kale, meedka markii la dhaqayo oo kale, najaasada marka la iska zuulinayo oo kale, micnuhu wax niyad markaasi uma baahna, camalkana uu iska ansaxaya ya marka agtari weeyo kulliya ma inama biniyada markii la dhahayo weya. wuxuu yidhi wa inamaa wax kala ma aha likulli imri'in qof walba waxaa u sugnaaday maa nawaa ay jazaau maama ladii jazihiisa u sugnaaday nawaa kulliyahumaga u niyeysay waa. qof walba waxaa u sugnaaday waxa uu niyeystay jazaheeda ayaa u sugnaaday. marka jumladan
oo inamaa likulli imri'in maa nawaa jumladeeda waxay faa'iidaysay jumladii ayada ka horeysay wax aysan faa'iideynin bay faa'iidaysay oo ah inama alacmaalu binniyaati jumladaas waxaynan faa'iideynin ayaa jumladatan ayada ay faa'iidaysay waa jumladii hore waxay faa'iidaysay ayada camalka inuu muctabar uusan ahaanaynin sharci ahaan ilaa binniyati mooyaano jumlada inama alcamalu binniyaat saas ay ayada tilmaantay jumladan dambe waa inamaa likulli imri'in maa nawaa waxay faa'iidaysay insaanka waxa uu sameeyey nafcigiisa iyo duurkiisaba inay insaanka u soo laabanayaan bixasabi niyatihi waa niyaddiisa qadarkeeda ayaa markaasina isagoo ugu soo laabanaya marka jumladan dambe waxay bishaaraysaaba ikhlaaskii bay bishaaraysaaba sida salaadii oo kale salaada markaad adiga dukanayso salaada haddaad adiga dukato waxaa la fiirinayaa salaadaas adiga aada dukatay horta adiga salaada maxaad u dukatay ala dartiisanimo miyaad u dukatay maya sumco miyaad adiga u dukatay ama riyaa miyaad u dukatay ayaa marka la fiirinayaa haddii marka adigaad u dukatay ilaahay dartiinimo wixii markaasine adigaad u niisatay unbaa markaasina kuusoo xasilayaa ayaa kuusoo xasilayaa marka kolka acmaasha la samaynayo waxaa lagu bisgaraynayaa qofka markaasina waxa asiga u niistay weeyaan hadda masalan niyada haddii adiga masjidka aada soo gasho oo adiga ictikaaf aada niyeysato ood masjidka isaga nigata nigaashahaasi wuxuu noqonayaa cibaado buu noqonaya haddii adiga ictikaaf aadan niyeysanin oo adiga masjidka iska fadhiisata keli fadhigaaga cibaado ma noqonaya fadhi iska caadi unbuuna noqonayaa waay fadhi iska caadi buu iska noqonayaa waay marka niyada ayada waxayba kala socdaaba caadada iyo cibaadada ayayba kala soocaysaa marka iyada haddii salaad la dukanayo adiga aad wasaqaad samaynayso niyadii waa adiga inaad soo xaadiraysaa niyada la-aanteed acmaasha ma ansaxayse waad qubaysanaysaa niyadii baad soo xaadirinaysaa salaadeed dukanaysaa niyo baad soo xaadirinaysaa zakadii baad adiga bixinaysaa niyad soo xaadirinaysaa waad soomaysaa waad xajinaysaa wahaakada marka inamaa sixatul acmaali sixatu aan soo qadarnay saasana fiicnaasho badan ayaa fiicnaasho badan wuxuu yidhi famana qofkii kaanat hijratuhu manka hijradiisa ayaa ilallahi ilaahay ay u ahaatay wa rasuulihi alla rasuulkii ay u ahaa fa hijratuhu munkaasi hijradiisa ilallahi ilaahay ay u ahaa wa rasuulihi alla rasuulkiisa ayna u ahaatay macnaha qofkii hijradiisa ay ahaato ilaahay dartii ay u ahaato iyo rasuulkana ay u ahaato ninkaas hijradiisa ilaahay iyo rasuulkiisayna u gadoomaysaa
faman qofkii kaanad hijratuhu manka hijradiisa ila llaahi ay u ahaad wa rasuulihi alle rasuulkiisa ay u ahaatay niyatan iyo wa qasdan loola jeeda fa hijratuhu mankaasi hijradiisa munsarifatun waa iska soo qadar ilallahi ilaahay xaggiisa iyo wa rasuulihi alle rasuulkiisa xaggihiina u gadoomaysaa waa hawaaban iyo wa jazaan waa xagga hawaabka iyo xagga jazaha waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ay u laabanaysaa waa man qofkii kaanad hijratuhu manka hijradiisa dunyaa ay u ahaa adduunyadaasoo yusiibu mankahaa adduunyada uu asii waayo aw imra'atin haweeney ay u ahaatay imra'adoo yankixa mankahaa imra'ada u nikaxsanaayo fa hijratuhu manka hijradii ilaa maa ay ladii ay ahaatay haajara manka ilayhi maaga xaggiisa oo u hijrooday wuxuu yihi sheekha raximah llahu tacaala wanafacnaa biculuumi ninkay hijradiisa ahaato adduunyo haddii hijradiisa ay ahaat macnaha hijro buu samaynayaa alla dartiisanimo ma ah ee adduunya darteeda ayuu markaasi u niyeysanaya inuu adduunya u gaaro uu soo asiibo mooye ayuu u niyeysanaya ama macnaha adduunyo oo isaga uu soo xasilinayo ama haweeney oo isaga uu soo nikaxsanayo haddii hijradiisa ay ahaato ninkaasi hijradiisa waxaa isaga uu u hajiray bay ahaatay buuri nabiga calayhi salaatu wasalaam ninka hijradiisa ay ahaato ataqarub ila allahi tacaala ilaahay ugu dhowo ay ahaato iyo rasuulka awaamirtiisana uu fartoomo ninkaas hijradiisa daacay noqonaysaa waa ninkii hijradiisa adduunya inuu gaarana markaasina ahaatay ama haweeney inuu soo nikaxsado hijradiisa ay ahaato waxaas u hajirinba hijradiisa ayna ahaanaysaa saas waa marka hijrada macnaheeda waxaa oo sharci ahaan mufaaraqatu daari lkufri ilaa daari lislaam waa faaruqid oo la faaruqo gaalada daarahooda iyo bilaadooda oo islaamka daartiisa xaggii loo soo hijroodo hijriyada macnaheeda oo sharciga sidaas waana waajib hijrada noocaas oo kala waxay waajib ku noqonaysaa nin waddan gaalo ku sugan nin ku sugan aanana awoodi karaynin in diinkiisa inuu daahiriyo ninkaas inuu meeshii ka soo hijroodo waajibay ku noqonaysaa oo daarta islaamka kusoo hijroodo ama wuu baqayaa diintiisuu fidno oo u baqa waddan gaalo buu ku sugan yahay wuu baqanaya wuxuu ka baqayaa diinkiisa in laga fidneeyo ayuu ka baqayaa ninka noocaasi inuu soo hijroodo waajib bay noqonaysaa hijrada marka laba xaalo dhexidii bay ku dhacday oo xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam ayna dhacday oo laba waj korkiina ku dhacday midka koowaad berigii hore muslimiinta way hijroodeen magaalada markay ka hijroodeen
geeskii Afrika ayna u hijroodeen. waa markii ayaga dushooda uu ku darnaaday dhibkii gaalada Quraysh xaggiisa markaasina ay ku dhibtoodeen. markaasaa rasuulka wuxuu amray inay hijroodaan oo arwaa xabasha u hijroodaan ayuu amray nabiga calayhi salaatu wasalaam. waa sanadkii shanaad ee nabnimadii u ahaa. marka labaadna waxay dhacday oo nabigu wuxuu amray saxaabada calayhi salaatu wasalaam. nabiga calayhi salaatu wasalaam saxaabada wuxuu amray inay hijroodaan magaalada Maka ay ka hijroodaan oo Madiina u hijroodaan buu nabiga amray calayhi salaatu wasalaam. waa soo saarida nabiga kadib 13 sano kadib weeyaan. marka labadaasi xaalo ayna ku dhacday hijrada waa. marka shaarixa wuxuu markaasna halkan uu kaga soo hadalqaaday haweenka fitnada ayaga ay leeyihiin iyo dhagartooda iyo marka kadshoomidda ayaga lagu kadshoomo. arrimahaas ayaa marka halkan uu ka tixayaa sheekha uu ka tixaya iyo waxaa mushkila marka ka dhalan karo iyo shaydaanka dhibaatooyinkiisu halkan kaga hadla. marka ilaahay subxaanahu wa tacaala maruu ka hadlayay shaydaan wuxuu yidhi ina kayda shaydaani kaana daciifan ilaahi subxaanahu wa tacaala. shaydaan dhagartiisa iyo hagartiisa waa wax iska liita weeyaan buu yidhi ilaahi subxaanahu wa tacaala. jaanibka haweenka markuu ka hadlayana wuxuu yidhi ina kayda kunna cadiim buri ilaahi subxaanahu wa tacaala. idinka geedkiina iyo makrigiina iyo dhagartiina mid weyn waa yidhi ilaahi subxaanahu wa tacaala. mid aad u weynasho badan waayo yidhi. marka xadiiska kan inama alacmaalu binniyaat meelaha noo kale markii la joogo culimmadu waxay ku sheegaan sabab wuruudi xadiiskan arooridiisa sababteeda ayay sheegaan. cabdullaahi ibni mascuud ilaaha ka raali noqde wuxuu yidhi annaga haddan saxaabada nabiga aan nahay dhexdayna waxaa ku jiri jiray nin baa ku dhex jiri jiray. wuxuu doontay haweeney buu doontay oo la yidhaahdo Ummu Qays la yidhaahdo ayuu doontay. bacdamaa gabadhii uu doontay oo way diiday oo inay guursato ay markaasna ku gacan saartay oo way diiday. ayada markaasi magaalada Madiino ayna ku sugneed, rajulkan magaalada Maka ayuu ku sugnaa. markaasaa waxay tiri aniga hadday guursan maysiido ilaa adigaad ka soo hijrooto ood magaalada Madiino ugu imaato mooye aniga ima guursanaysid bay ku tiri. laakiin haddaad adiga Maka ka soo hijrooto ood adiga Madiino imaato waxa weeyaan waan ogolahay markaasi waa isguursanaynaa saasay ku tiri. markaasaa risaalo bay u soo qortay oo ay ku dhahayso adiga soo haajir oo magaalada Madiina imaad kadib waan isnikaxsanaynaa macnaha guurkaaga diyaar ayaan u ahay. hadad mar adiga soo haajirto oo magaalada markaad ka soo dhaqaajiso ood adiga magaalada Madiina aad imaad. laakiin inta ka sokayso ani adiga guri isugu imaan mayno saasay ku tiri. magaalada Maka iyo Madiina masaafo baciid baa u dhexaysa waa lagu yahay. markaasaa ninkii isaga ahaa
وسو دقاجي ومن مكة أيو كسو هجرودي ميالة المدينة أيو سو آلي ميالة المدينة مركو سو قاري مركا ويوددش ومغيس نينكا كان أوايدا أوي ميالة مكة وسو دقاجي إنو بورسة أوي ميالة المدينة ويمت أبا يوددشو بلانتي ويوفيسيو وإسقوسين مرة إذا واحد يوارد مقطع أنا قدرت إذا وطن كاتو وصوبة على دي ما تاني وإسقوسين إني تريادو هذا المقو يمادكين لكو قعن سيرتها بربلان يمكن مغنيكي وصودا غاجة مكو كسودا غاجة مغيرة مدينة يوسو غاري هالكاسا مركاسنا يلي وكو قوسين مركاسا عبد الله بن مسعود يقول أنا وحانا نموي ninka isaga kuwii magacaabo ayaan heerno muhaajiru ummu qays baan anaga dhihi jirnay muuye muhaajiru ummu qays ayaan anaga dhihi jirnay ninka isaga marka xadiiska sababkiisa sidaas ayaa loo sheegaa marka xadiiska waxa uu wariyay Bawaraani ayaa معجم كيس كبير كوريي سنة رجاشي سنة بقاد أي يقول كوري عبد الله بن مسعود حمد أيونا كوري مركا حديث كان إنما الأعمال بالنيات ويحكم دي هاي أحاديث تهامل أهو مهم كأح أيحكم دي أحاديث ده هامل أهو آدك أواوين وعادنا مهمة أيو حديثك كان وكمل إسلام كا مداركيسة حديث كان دوشيسة يا إنو يهي أي علوة قلت الماما حديث كان ودينتا أصوشيدا أي وصل وجهه وأصل من أصول الدين وحديثك إنما أعمال بالنيات حديثك كان بحديثة أين كتب وريغانيسا إن حديثك أصل من أصول الدين وي إسلامك حكمت سائم بلن وهي كتب وريغانيسا حديثك كان أين كتب وريغانيسا يا وعارين كاسبوت صينا يو الدليل كووا علماء إلهي سبحانه وتعالى إلهي أكرر النغضة أنا حقا أنا خير الله أرغى وليا علماء يا وحديث كمركا يكير هذا أبي داود يا وحول حديثك كان إنما الأعمال بالنيات إسلامك نسكي سبوا يوجد إسلامك نسكي سوا يوجد حديثك كم معنى إسلامك مركي لابر راديو نسكي سوا يوجد حديثك كم معنى في دين أحكام تلا يا ويقيم سميسا ويران إلهي الله قسمي أيوة قسميسا شيء مركا أو ظاهرية وأنا عمل شيء ويا يا شيء مركا باطنية أو نيدي أهويا حديث كان مركا نيدا نفتر كذو بك الله يا نيدا نفتر كذو بك الله الإمام الشافعي يا الإمام أحمد بن حنبل إلى يكرر النقطة أين وعير هذين حديث كان علم الثلث كي سويا يعني علم الثلث كي سويا مركي صدق الراديو حلمة ويا مير هذين حديث كان كريم معنا ذلك وحير هذين وكل كعليان صوتها وحيتاي أدومك كسب كيسة بقلبه أو
bilisaanihi oo bijawaarixihi yuuna markaasina ka ahaanaya addoonka kasabkiisa qalbigiisuu ka ahaanaya carabkiisuu ka ahaanaya iyo xibniisuu ka ahaanaya marka niyada waa midda ugu raajaxnimada badan waa saddexdaas midka ugu raajaxnimada badan waa saddexdaas niyada ka mid a soo maha midka ugu raajaxnimada badan waa labadii kaleentana niyadii raacayaan sixatan wa fasaadan wa hawaaban wa xirmaanan ay niyadda ku raacayaan ay niyadda ku raacayaan ayib marka xadiiska wuxuu yidhi warawaahu xadiiska waxaa wariyey imaam alxadiithayni yani muxadithayni dhihi raba rawaahu xadiiska waxaa wariyeen imaam almuxadithiina muxadisiinta labadoodii imaam ayaa xadiiska kan wariyeen ya wuxuu yihi xadiiskan waxaa wariyeen xadiiskan waxaa wariyeen muxadisiinta labadoodii imaam ayaa xadiiska kan wariyeen cilmiga xadiiska laba imaam oo aad u waaweyn ayuu leeyahay ya labadoodaas waa bukhaari iyo muslim waa labadoodaas waa la magacaabay laba imaam inay yihiin baa lagu magacaabay laba imaam inay yihiin ayaa lagu magacaabay macnaha ayagaa waxay gaareen bukhaari iyo muslim gaayada oo zuhdiga iyo waraca iyo ijtihaadka oo xadiidka saxiixa ah la soo saaridiisa yool ka gaareen ya saasaa markay imaameen loogu magacaabay waa axaduhumaa soo qadar imaameenka midkooda abuu cabdillaahi cabdillaahi aabihiisii waa muxamed waa muxamedkoo ibnu ismaaciilkoo ibni ibraahiima ibraahimkoo ibni lmugiirati waa mugiirahaasoo ibni bardisba ina bardisba ahaawa muxamedkaasoo albukhaariyu magaaladiisa beldadiisa buqaaraa loo nisbeeyey waa buqaaraa loo nisbeeyey waa muxamedkaasoo aljufiyu qabiilkiisa loo nisbeeyey waa ya wuxuu yidhi labada imaam midkoodu waxa weeyaan abuu cabdillaahi weeyaan alimaam albukhaari waxaa looga naanaysaa abuu cabdillaahi ayaa looga naanaysaa magaciisu waa muxamed aabihiisa ismaaciil baa la yidhaahdaa ismaaciil aabihiisana ibraahim baa la yidhaahdaa waa awowihiisii labadba ibraahim aabihiisana mugiiro aa la yidhaahdaa waa bukhaari awowihiisii saddexaad waa mugiira aabihiisana bardisba aa la yidhahdaa bardisbah baa la yidhaahdaa waa awowihii shanaad alimaam albukhaari weeyaan ya marka bardisbah ismun farisiyun weeyaan macnihiisu waxa waa azaarica kii beerashada badnaa aloola jeeda maa albukhaariyu waa nisbatun ilaa bukhaara waxaa loo nisbeeyaa bukhaara magaalada la yidhaahda loo nisbeeyaa baldatun macruufatun waa bukhaara baldatun macruufatun waa oo markaasina ruushka ku taala waa
طيب الإمام البخاري وعلى علي بقارة نفتر كذا رقود الله إلى قراءة الموضوع مالين جمعة صلاة الجمعة بعد جيدة على الله مالين جمعة أيضا صلاة مركز لقى صباح يقول بلا على الله saddex iyo toban bisha shabaal ay ka tagtay sanadka yacni 194 hijri markuu ahaa waxa weeyaan 94 hijri markuu ahaa baa la dhalay al-Imam al-Bukhari waa nin salaf mujadid nin salaf weyn الجعفي قبيل كيس اللون نسبيه نسبة إلى اليمن ابن أخنص الجعفي وإلى بقاران ونسبيه وإنما نسب إليه لما له عليه وحاله نسبيه وعمركز نصيب الدشي سؤال من ولاء الإسلام بسبب جده المغيرة marka halkaan oo Imam Bukhari kaga taariikheynaya xagga sharaxa oo sii baxay wathanihi ma soo imaameenka midkoodii labaad Abul Hussein أبو الحسين مسلم كو ابن الحجاج حجاج الكيساء مسلم يعني حجاج كو ابن مسلم الكيساء مسلم كاسو القشيري قبيل كيسا لون البيوا مسلم كاسو النيسابوري ما يلي سلون البيوا إمامين كميت كودي لوا وحويان أبو الحسين ويان الإمام مسلم وعلونا نيسا أبو الحسين بالونا نيسا ميعي سنة مسلم نتركي سبوا بخاري مسلم صلى مسلم كابا ميعي سأهوا أبي سنة حجاج أيالي هذا حجاج أبي سنة مسلم أيالي هذا وهويسي لوادوا يعني هويسي كوادوا معنى أبي سوا القشيري قبيل كيسلون نسبيوا القشيري قبيل كيسلون نسبيوا نسبة إلى قشير ابن كعب ابن ربيعة ابن عامر ابن الصعصعة على نسبنا يا قشير ابن كعب منك الليل هذا ابن ربيعة ابن عامر الصعب ابن صعصعة أي على نسبنا وقبيلة كبيرة قشيرة وقبيلة ونشبضون عرفة كم الأولية النيسابوري ميالذي سلون نسبيي نيسابور ومجاله وعين قطالة أفغانستان مجاله قطالة أعظم مدائين خراسان مجالوينكي مجالات ugu weynaansho badan waa Khuraasana haya waad garanaysan Afghanistan weeyaan Imam Muslim waa la dhalay sanadka 204 ayaa la dhalay Bukhari kamina mujada Bukhari goorma la dhalay 194 la dhalay Imam Muslim goorma la dhalay 204 taariikh hijri markuu ayaa la dhalay Bukhari ka weyna laakiin naftigiisu waa nin salaf weyn waa
الإمام مسلم علمي وحوكا قاطي حديثك الإمام أحمد بن حنبل يا حرملا أيا مشايخين جس حديثك كم دهايا يا كم دهايا إيوه خلايا غفار بدن أيا مرك حديثك وحوكا قاطي يا طيب الإمام مسلم وحو دنتي تاريخ هجري مركو على بقول لهن يكو مركو أبو جري لو بقول لهن يكو مركو أيا مركا سن أبو جري ذيوا ساسوي لو بقول لهن يكو لو بقول أفر بعض داري لو بقول لهن يكو مركا أيوكو جري marka kontinew iska ahaya leedanka tamaba gaarinba macnaha wuxuu ku jiray konton iyo 7 sano jira siwa uu geeriday noqonaysa ya konton iyo 1 yani 7 jira siwa ayuu geeriday waa macnaha 260 iyo 1 buu ku insoma goorma la dhalay 240 baadal marka 260 iyo 1 markii laga jaaro 204 konton iyo 7 sano waa inta soo cumrigiisu ahaa bayo magaalada Naysaabuur ayaa lagu duway Imaam Muslim qabrigiisa Naysaabuur magaalada weeyra naftarkeeda ayuu ku yaalaa waa qabri mashhuur oo caan oo la yaqaano oo la ziyaarto oo la barakeysto wayaan Imaam Muslim qabrigiisa waa طيب انت كوريين مركا يا انت كوريين بخاري ومسلم انت كوريين في صحيحيهما بخاري ومسلم لوضع الصحيح لحدي اي حديث كوريين في صحيحيهما اي كوريين رواه قطع في صحيحيهما اي كوريين هما ضمير كان لولا إمام بغنغانا يا أو بخاري يا مسلم طيب اللذين لولي صحيح هما لولا الصحر كتب تنوى عن صحيح بدن أهوى كتب تعصى المصنفة لصنفة المؤلفة في الحديث هو يا أي كوريين في صحيحيهما أي كوريين الذين رواه الصحيح هما رواه أصح الكتب أهوى كتب تعصى المصنفة إلى صنفة لو صحيح بكوري بخاري ومسلم حديث كان يا كوري طيب بخاري ومسلم كتب تواصل في يا لا وضع أبو أنصح لماذا بدنوا إلهي جايزة سيد درجة سبوسي بخاري ومسلم يا كتب لا اللي في أو رصن في كتبت وهو أنصح بدن ويان بخاري ومسلم ويان هذا كان وهذا إجماع عند المحققين من العلماء هذا هو إجماعي معناه كتبت لا ألفي أو صنفي كتبت وهو أنصح لماذا بدن يا بخاري ومسلم كأيهم هذا الإمام الشافعي أولي يا بخاري مسلم مركها واحكم دوا الإمام الشافعي وحيري ما بعد كتاب الله أصح من الموضع يبوي معناها إلهي كتابك سبعد كتبك وأصح دبلا وموضع يا إمام مالك وليه وايوي يا هذا كان مركه
وعلى ليه لأنه كان قبل وجودهما بخاري مسلم كأنت أنا له الإنكار أيام موضع سداس وها أيوة سداسها إذا الموضع كتاب عجيب هو بخاري مسلم كواكوري يا بخاري مسلم أنت أنا له الإنكار أيام موضع موجود هو يا ما بخاري مسلم كهر موضع إمام مالك وليه وحوها أصح الكتب هو يا بعد كتاب الله أيوة هو هاي جمهور تواكين وهي كترين بخاري مسلم كا إنيهن قوة أصحى دبالة معنى ذلك بخاري أصيغ مورينا يا حديثك إلا ما الشخصي يورينا الشخصي سكلا وكلا كله معنا مورنا حديث لكن مسلم وحقوق أفتوما أصيغ معاصرة لزمنتن حقوق أفتوما لكن بخاري أصيغ معاصرين كم كأفتوما أنت في كل دنيا معنا بخاري معنى وين بخاري معنى وين هو حديثك الصحيح أهنا إلى يتدور خير أيوة غير سماي حديثك الصحيح إلى يتدور خير أيوة مركز غير سماي ما اتفق عليه الشيخان وبخاري مسلم وحسكو وابغي من فرد به البخاري إيوة مركز البخاري ولقوا للنوضة من فرد به مسلم ومركز الإمام مسلم ولقوا للنوضة ما خرج على شرطهما معناها رجال أو معنى البخاري مسلم على شرط ولا مركز لغوص صار ما خرج على شرط البخاري البخاري جيب يزوح مركز لغوص صار ما خرج على شرط المسلم مسلم شرط لغوص صار ما حكم بصحته إمام المعتبر حتى دوصل لغي بياوا وهو لكن متفق عليه شيخان هو رياوا marka toddobaasi ayuu leeyahay xadiiska siyawa marka xadiisku xadiis cajiib ah weeyo culimadii islaamka kutubadooda markii ayaga sanifitaanka ay bilaawayaan waxay suneeyaan xadiiska inama al-a'maalu bin-niyaat in markaas lagu bilaabo al-Bukhari oo kale markuu kitaabkiisa uu qoray awalku wuxuu qoray حديث إنما الأعمال بالنيات بوقف تهوى إنما الأعمال بالنيات أيوه يعني وقف تهوى الإمام النووي كتابه كان 40 كي رياض صالحين هي كتاب كأذكاك سد عزمك وغرى وقف تهي إنما الأعمال بالنيات مكان السنن ملاسي هيا مركز الوقف تهوى يعني السنة تهوى نيد وحوين وايه نيد وحوين وايه صار مركز نيد لو بلاواي حديثك واحد تاع كتبك لو افتح حديثك لو افتح واحد عبد يا طالب علمك إنه نيديسا ومركزنا وصح حاضريه علمي مركو براناي نيفي عن إنه مركز أوليما وأولا وقبل كل شيء طالب علمي نيدي سوء علمي برشيد يكو آدن إني أهاتو التقرب إلى الله تعالى إنه إلهي علمي كان وبرنايو إنه قدوة سبحانه وتعالى مد الوار علم برنا وحي تهي نسديسا إنه جهلي أو كساره إلى علم مرقد عليك براتو أولا وحا جهلي ككرايو عليك نصد على جهلي كقرماي ثالثا وحوا إلو مركز جيلك إيو مدى كدن بيسا علم مركو برتو أصيانا أو سي برتو مدى كالانت مركي علمي أو برتو عمل ثلوة ناكسن إنو لجي مالو وعلمي أو برتي مركا وحويا إنو كو عمل ثلوة وأرد يا طالب علمي أو نغضو
ardayga markaas niyadiisa mar walba ay xaadir tahay wanaagsan tahay barashada cilmiga u baranaya la dartiisanimo inuu u baranayo niyaddeeda macnaha inuu markaasina mar u daa'ima la doonayaa cilmiga inuuna u baranin daalibu cilmiga aadan cilmiga barata adiga dadka dhexdooda adiga magac ku yeelo adiga jaah iyo sharaf ku yeelo dadka ha kugu qiimeeyaan cilmigaaga dadka ha ku barakeystiin adduunyo ku gaar saas inuu cilmiga unaana u baranin oo ataqarub ila allahi inuu u baro teedi kale cilmiga waddadiisa waxaa lagu gaarayaa ilaahay subxaanahu watacaala jannadiisa ayaa lagu gaarayaa ninkii cilmi barashadiisa wadda u maro waddadaas wuxuu ku gaarayaa waddadii jannada ahayd buuna ku gaarayaa marka arrimahaas ayaa marka culimmadu ay u doorbideen kutub marka iyaga qorayaan inay xadiiska inama alacmaalu binniyaad ay ku aftaxaan markay u doorbideen marka niyada waxa weeyaan cibaadaadka asaaskoodii niyadda maxalkeeda leh qalbiga niyadane aqbalka shardigiisa awalkiisa acmaasha ee la aqbalo shardigeeda inay niyadaba taha niyada tahay waxyaala laga qaaday marka xadiiska qodobkaas ayaa ka mid الحديث الثاني هذا وبالله التوفيق والله سبحانه وتعالى